بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa inaan maanta halkaan sameeyo geedan oo lagu sameeyo oo sharaxaadan aan maanta sameynayo waa 3 dabaq oo saxan ah. saxankaas waxa ku suubsan kartaa barfuunada saaran kartaa, hadaa rabtid shabciyada saaran kartaa, waxa rabtaa saaran kartaa. marka wuxuu ka kooban yahay baan halkaan in tusayaa. kan ugu horeey arkaysid waa geed sharaxaad oo saxanka afka looga xirayo lagu wareejinayo iyo kooladii biskoolad oo koolada lagu sameeyo. aad bayna koolada u fiican tahay, isla markii wax walba dhab kugu dhagaysaa. marka kooladii halkaas aan iga tusayaa. waxa kale oo aan tusayaa hadana kuulo oo hadhow hareeraha loogu wareejinayo. saddexdii muraayadoodaan marka kala bixinayaa. muraayadda waxaan ka bixiyey galkaan ka bixinayaa, kabacdina hareerahan ku wareejinayaa geedka. haddana waxaa soo qaato kale waxa u dhexaysiinayaa geedka oo la dhaho geed mushamaca la saarto marka hore dhala ah baan u dhexaysiinayaa xeero kasta si oo 3 dabaq igu noqdaan. marka saas ka kooban yihiin. rinjigan oo waxa dhalada ku jira waa rinji loogu talagalay inaad wax ku buufisid oo kanada kalarkan waa silver. markaad buufinaysid aad buu khatar u yahay, marka sanka waa inaad iska xidhid. anigu waxa ugu buufinay kan alwaax marka hore qoriga alwaax u ahaa, haddana waxa inaan silver ka dhigto maadaama meesha dhan aan silver ka dhiganayo birtoo dhan. marka birtaan ku buufiyay, laakiin sanka waa inaad iska xirtid. kuulahan yararka waxaa rabaa oo inaan ku wareejiyo meesha u wareegsan oo maxaa lahaa garangar maal lahaa baa ku wareejinaysaa. marka kalarkaa rabtid baan ka dhigan kartaa. hadda ani 2 kalar baan doortay maadaama kuulaha igu yaraa. marka 2 kalaraan ka dhigay, mid oo cadcad oo maxaa lahaa qalin ah iyo mid madmadow ah. mar hadda arkaysaan, marka 2 kalar baan ka dhigay. kan oo hadda waxaan sameynayaa markuu geedka ii qalalay, waxaan geedka birq qabaan ku karka uga shubayaa koola marka hore marinaya, kabacdina asaan ku shubayaa. marka birqa uu igu dhagaysaa meeshii qurux ii qurxinaysaa. waxay noqonaysaa wax shining oo birqaya. marka maadaama wax dhan baan rabaa inay silver oo indhaha soo jiidanaya, geedka saas ugu shubaya birqa. muraayadda markii hore waan kala furay. marka waxaan u kala furay hadhow way ka halaabaysaa muraayadda haddaad sharaxaadii iyo rinjigii iyo wax dhan kula buufsayad muraayadda ku jira. marka waan kala saaray. markii wax dhan diyaar ii noqdeen baa haddana ku ceshay qodbay lahaayeen. waxaan ku fiicnayd qodbiyan dib ugu ceshay, waan xirxiray. marka saas wixii ku dhameeyay. saxankii hadda saas ku soo baxay 3 dabaq maasha Allah. hadda arkaysaan 3 geesood oo markii hore ana hore u sameeyay 2 dhalo oo geeska yaala. saxankan sameeyna wakaas asagoo barfuunkii ku jirana ma ina tusayaa. asagoo wakaas hadda kaligiisa oo mushaac kor ka saaran yahay. marka quruxdaas ku soo baxay maasha Allah. إن شاء الله waxaan rajeynayaa inaad saxankan dabaqa maanta aan sameeyo ka heli doontaan. marka haddii aad wax ra'yiga iyo waxa ka jeceshiin inaan kuwa kale badan idin soo geliyo iyo inaad ka hesheen ra'yigiina ii soo qora. إن شاء الله comment iyo like iyo share ka inta igu dhufta إن شاء الله. marka idinka aniga warsugayaa ilaa dadweynaha wax loo sameeyaa mar walba. marka xaqiina waayaan.